ilaa iyo 31 qoys oo barakacayaal kana yimid gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya soo gaaray magaalada Muqdisho ayay xaalad dhanka nolosha ah ku haysatay degmada Waabari ee magaalada Muqdisho. qoysaskani ayaa la gaarsiiyay deeq lacageed gaaraysa 30 milyan oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta 900 taas oo ay ku soo deeqday hay'adda Mama Caasha Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. qoysaskani ayaa u badan caruur, haween iyo dad ah kuwaas oo ay soo daashadeen duruufaha qalabsan ee dhanka nolosha iyagoona sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo barakaceen waqtigan ay tahay abaarihii ku dhuftay inta badan gobolada dalka Soomaaliya iyo cunno la'aan ku soo wajahday deegaanadii ay ku noolaayeen. dadkani ayay ka muuqanayaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ee weli haysta iyadoona la sheegay tan iyo markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho in dadka ku dhaqan degmada Waabari qaarkood ay ugu yabooheen dharka ay xiran yihiin iyo sidoo kale in mararka qaar ay helaan cunooyinka khudulduruuriga. agaasimaha TV-ga Universal ee bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya Ibrahim Maxamed Xuseen JK oo uu weheliyo maamulka degmada Waabari ayaa si wada jir ah ugu qaybiyay lacagihii ay ku soo yaboohday Mama Caasha Foundation taasi oo qoyskiiba ay gaartay lacag dhan 900 oo shilinka Soomaaliga. qoysaskani ayaa dhankoodana soo dhaweeyay kaalmooyinka la soo gaarsiiyay iyagoo sheegay inay ku nool yihiin xilligan lacag yar oo ay ka soo dawarsadaan suuqyada magaalada Muqdisho kuwa oo aan dabooli karin baahida haysa. Iisha Aadan Maxamed waa haweeneyda ah kana mid ah dadka barakacayaasha ee xilligan ku dhaqan degmada Waabari waxa ayna ka waramaysaa halka ay ka soo carartay iyo duruufaha Muqdisho keenay iyo sida ay haatan ku nooshahay. Iisha Aadan Maxamed saddex bilood buura ku qoy saddex bilood yaan diro tuugsaday may walqan way hatta alxamdulillah lana ilaahay midillah ma hadiyo la shukri intii maarsi adduunyaa qaral qabow ki maarku sadiidi hatta weesay diganisi raashin diganisi akamaha sanku shukri. agaasimaha telefishinka Universal koonfurta iyo bartamaha Ibrahim Maxamed Xuseen JK ayaa isna ka warbixiyay cadadka lacageed ee la soo gaarsiiyay sababaha keenay in dadkan la soo caawiyo iyo meesha ay lacagtan ka timid. waxaanu dhex joognaa degmada Waabari ee gobolka Banaadir dad soo barakacay dhawaan oo ka yimid Diinsoor oo dhibaato farabaan ay haysay oo nololeed oo maamulka degmada Waabari oo uu siiyay hoy iyo nolol oo dhawaana laga sii daayay telefishinka caalamiga Universal ayaa baaqi ugu horeeyay waxa ka soo jawaabay Mama Caasha Foundation oo xarunteedu tahay magaalada London ee wadanka Ingiriiska. waxaana ay soo dirtay lacag tiradeedu gaarayso $900. lacagtaas iyada ah ayaanu soo sarifnay 31 qoys oo ah dadkii soo barakacay oo dhibaatada baan ay haystay waxaanu ugu qeybinay 900 oo kun oo shilin Soomaaliya 31 kaas qoys. runtii sidii indhihiina hadda aad ku arkaysaanba dadku waa ay dhibaataysan yihiin. maamulka ayaa gacanta ku haya imikadan ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir. runtii waxaan ugu baaqayaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda meel kasta ay joogaan dadka walaalahooda ee ku dhibaataysan gudaha magaalada Muqdisho in ay kaalmo degdeg ah ay soo gaarsiiyaan waayo dadku waxa ay ka soo barakaceen gobolada dalka iyo gudaha qaar ku barakacaba waa jiraan kuwan kuwa ka sii daran laakiin kuwan waa kuwii ugu liitay ee magaalada dhawaan soo gaaray. marka aad u mahadsantihiin dadkan waxay idin ka rajeynayaan inaad gacan degdeg ah u soo fiirsaan waayo xitaa dhar ay xirtaan hataa ma haystaan. gudoomiyaha degmada Waabari ee maamulka gobolka Banaadir Axmed Meyle Makaraan ayaa isna u mahad celiyay dadkii qayb ka qaatay in dadkan lacagahan la soo gaarsiiyo iyo cidii soo caawisay isagoo sidoo kalena ka codsaday qaybaha kale ee bulshada inay il gaar ah ku eegaan dadkan ay haystaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ee u soo barakacay degmada Waabari. dadka wali ma aysan helin meelihii hoyga ay ka dhiga lahaayeen. meeltaan aan xiradan aan ku xiraynay waxa uu xiraynay inay maartay banaanka ay ugu fiican tahay meel asfuran ay tahay. waxaan maartay jeclaalahayn hay'adaha waxa bixiyo oo deeqaha bixiyo ama maartay waxyaabaha bacaha iyo waxa soo bixiyo kaleento inay maartay wax alaal wixii ay kari karaan dadka saan isu dhaxdaasan oo aysan meel ay kala digaan aysan garaash fiican oo maartay wax ku dhisan karaan oo u sameeynay hadduu Ilaahay yiraahdo qof alaal qofkii wax keeni karto inay la soo gaarto. dhinaca kalena masjidka jaamacadda ee degmada Xamarweyne oo kamid ah masaajidada muddada dheer ku yaala deegaanka
ayaa xilligan waxaa qayb ka mida masjidka uu yahay mid aan dayactirneyn gaar ahaan qaybta loogu talagalay weysada waxaana sidoo kale jirta in masaajidka aysan oolin katiifadihii loogu talagalay in dadku ay ku tukadaan marka laga reebo darmo yaryar oo aan hagaagsanayn maamulka masaajidka uu TV-ga Universal kula kulmay bartamaha masaajidka ayaa uga waramay sida ay tahay xaaladda masaajidka kaas oo sheegay inaysan jirin wax katiifada oo xilligan yaala iyo waliba in qaybaha weysada iyo suulidaba aysan masaajidka ahayn kuwa dayactiran maamulka ayaa waxa uu intaasi raaciyay inaysan awoodin waqtigan in ay qaybahaasi dayactiraan xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan taasi oo goobaha cibaadaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho si weyn loo camiro haddaba waa kan maamulka masjidka jaamaca ee degmada Xamarweyne oo ka warbixinaya xaaladda guud ee masaajidka jaamacada Xamarweyne sida hadda idin muuqata inuu meeshii lagu weyse qaadanayay inay yar tahay oo aan rabno meel wasacan sameeyno teedii kale waxaa jira masquulaha on cariiri uu qabno masaajidka oo latiif fadla oo hadda aad ku arki doontaan sawirka waxaanu doonaynaa kale in nolol dhammaystiro mundhaarada oo mutaleelaha looga dhiman yahay iyo dhinaca weysada goobo badan oo ka mid ah kuwa cibaadaadka ee ku yaalay magaalada Muqdisho ayaa ku xirmay kuna burburay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona haatan goobaha lagu cibaadaystay ee degmooyinka dadka ay ku nool yihiin qaarkood aan wali helin dayactir wanaagsan Cabduqaadir Cumar Cabdulle Universal TV Muqdisho